السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكم ودعم ميديا جنال صاحب يال سيد نوغو براتين وحن بحجرنا عشرة لوغو برتو قاببك الله وذو موتوينك إيقا واردة إيو بجاجتا ما انتو حاربا بجاجتان markii aan wato iga ciladoodo ma garanaya meesha ka ciladooday haddii ciladoodana ma sameeysan karaa waxaan rabaa inaan ni kala sharaxo motorka meelaha ugu dhaqsiya badan ciyo ka halaawdo iyo sida ugu fudud aad ku sameeysan kartid waxa ugu horeeya marka koow saogta taayirada qofka shakhsiga oo markaas wato ayaa badashto asigoo isticmaalayo fikrado iyo aqli isku darsado in mootada kor loo qaado kadib taayirka la furo kadib ayadoo sideeda lagu xiro marka waxa u baahanaa iyadoo faahfaahsan inaan ila socodsiiyo mootada dabadeedii halahan u jeedid waa dabadii mootada kulli waa isla wada naqaanaa waxaan rabaa inaan furo oo aan bilaawno cashirkii motorka soo dhawow saaxib aan bilaawno bismillaah saa u jeedid maasha allah dabadu waa furnay hadda u baahanaa marka inaan cashirkii bixinno oo mootadii aan bilaawno waan u jeedaa intaas oo mootada motorkeeda ka kooban yahay aadunu yaryaw kooban yahay weena waxaan rabaa inaan kala qaado oo aan sharaxo marka ila socod wanaagsan waa bilaabeynaa cashirkii sad u jeedaan motorkii hadda kor taaganahay aan bismillah aan bilaawno kan waa dublatore oo u jeedaan intaas ilaa meesha soo galaa kan aan ku tuso waa raayatooraha mootada kanna waa geedii gaaska ama shidaalka lagu shubayay magac ahaan waxaa loo yaqaanaa salbatooyo shidaalka waa lagu shubtaa labadaa shay geedkan cadka iyo geedkan cadka waa gandeel kuwaana waa bambiinka oo gandeelka dabka ka qaadayo labadaana waa kuwa dabdhaliyaha oo toos dabka furaha u geey doono ama u geeyo midkaan u jeedidna waa kaalbeedharka shidaalka midkaan hoose ku yaalne waa motoriinka geedkii laga kicinayay oo ama mootada laga kiciyo midkaan yar oo meeshaan ku jiro maadaama meesha cariiri ay tahay saa u jeedid waa kanaa waa filtarihii oo oolyada tubadana waa tubadii iskaarikada oo motorka ka imaanaysay oo meeshaan ay ka dhiibtaa kanna waa iskaalamitadii midkii aarida bixinayay oo toos motorka u galayay fadhigaan aan arkaysna waa motorkii kan waa kubeerkii waa meesha oolyada looga shubayay madaxaas ku sanaacado macdanka qaybtaan u jeedidne waa qaybtii fuyuusyaashii iyo fiilooyinka iskugu imaanayeen oo dabka dhan laga maamulay ama ay ka qaadanayso mootada horta maadaama baasha meesha cariiri tahay hoos aan isku daya inaan ka soo galo baashaan u jeedid waxaa ku jiro digsi frizoonka ku jiro meeshaan farta aan ku haayo haddaa aragtaan digsi frizoonka ku jiro halkaan waa kaambiihi boolkaana waa meeshii oolada laga daadinayay saa u jeedid motorka dhan waa tara kora hadda wada jeednaa mootada kora u qaadna waa istaajina markaan meeshaan waa muhiim in la ilaaliyaa markasto oo haddii marshooyinka ayagoo iska wada iska soo celceliso birama iyo sugunta teers aad ku waashid waa halka meel ay ka jabayso ka ciladoobayso waana finish markaas motorkaas dubaashan oo kaambiyan ka halaabo mootadaas culeyskeeda zaa'id ay noqonaysaa hadaayay magacyada ay leeyihiin bas aan sheegnay waxay qabtaan iyo waxa laga ilaalinayo aan rabaa hadina u gudo galo meesha ugu muhiimsan waa gandeelka waqtiin xilliga roobaadka gandeelkan iyo xilliga dhaqitaanka mootada la dhaqaayo hadda ilaasho weysid mootadaas kicitaankeeda waxay noqonaysaa dhibaato oo biyaha hadii ka gaaraan way dhib badan tahay si aad ku kicisid marka oo magaalka roob ka jirana waa og tahay way dhib badan tahay inaad biyahaas ku dhex socotid oo waa arkaysaa mootooyin badan oo jidka dhex yaalo oo gandeel dartiis u kicila marka waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo bacyaal lagu xirto ama garaasa la marsado si biyahaas ay kaaga difaacaan kanne wuxuu u baahan yahay in la buufiyo isbuucii mar la buufiyo sasamboor iyo qashin u jiidin sababtoo ah hadduu marba gudbiyo motorka u geeyo dhibkeeday leedahay oo dhibaato keenaa
sidoo kale filter ahaan asignatirkiisa wuxuu fiican yahay in la iska bedelo isbuucii mar oo oolida laga daadiyo haddii aad awoodid mar kasto inaad salbatooyada buuxsatid fiican haddaad tiraahdo $1 iyo $1 aan ku shubanaa kalbedarka laga yaabaa inuu wasaq kaa jiido iyo qashin ay kaa galaan markasta waxaa fiican marka haddii la awoodo shidaal badan in lagu shubto salbatooyada la buuxsado si ay kaaga ilaaliso kalbedarkaas inay wax kaa gaaraan saad ka warhaysid raatooriyaasha kale biyo ku shaqeeyaan laakiin oolyo ku shaqeeyaan midda kale waxaan rabaa markaad dhaqaysid meeshaan in si fiican loo dhaqo sida marwaxadda ay waxa u siiso xawaaro fiican ama hawo fiican ay u siiso marka waxaan igula talinaa geedka inaad si fiican u dhaqdaan raatoorahaane sidii kuwii hore biyaha ugu shaqeynayeen ma aha kan wuxuu ku shaqeeyaa oolyo sidoo kale matoorinkan mararka qaar ay mootada kicin jikiki kugu jirto waxaa fiican in acyo ka gaarato sababtoo mararka qaar waxaa dhaco gandeelka dab inuu soo gudbinin ama shidaalku ugu yar yahay kadib asiga waxaa ku imaanayo kuleel oo ah dhuxuli inuu ciyo dhameeyo marka waxay fiican tahay in acyo ka gaartid aad geysatid farsamayaqaan u geysatid laga jeegareeyo aad ogaatid ma shidaalka laga haystaa mase gandeelada mase asigiyaaba dhuxusha ka dhamaata matoorinka sidoo kale iikaadii hoos ah ka soo galo caagan yar u jeedid waa caagi oolida cabirka laga fiiriyo inay wasaq tahay inay nadiif tahay inay hoos u dhacday oolyadii oo laga fiirinaya asigana meesha shabaq yaraa ku jiro boolkan u jeedid waa boolkii oolyada laga daadinayay oo matoorka laga daadinayay markaa kaas furtid waxaa loo baahan yahay kanna inaad furtid soo hawo u helo oo dhaqsi u daadiyo okay saaxib boolka markaa furtid waxaa ku jiro filter kaloo yar oo shabaqle ah oo asigana basiin iyo waxyaabaha markaas loo baahan yahay lagu dhaqdo asigana wuxuu u baahan yahay in la dhaqo oo la filtreeyo oo nafta ama basiin wixii markaas aad haysatid aad ku dhaqatid oo nadiif aad ka dhigtid okay qaybtan aad u jeedid registraha mootada ama siliska looga registareeyaa bool diisha ku jiro oo laga registareeyo oo hadduu silis ku ka dibacsan yahay lagu dhujiyo hadduu kugu adag yahay laga dabciyaa saa u jeedaan waxaan rajaynayaa inaad fahanteen oo aad wax ka bogsan doontaan insha Allah ayadoo faahfaahsan oo intaa ka badanna waa samayn doonaa oo bool loo kala dhigay iyo motorka wadagsanna waa ka hadli doonaa insha Allah taala dad ka warqabtaan mootadan hadda dalka hooyo waxyaabaha dhalinyarada maanta ugu cishoonay ama noogu cishoomeen qaybta badda ama tahriibka ay ku aadi jireen ay ka kowtahay oo naga saamaxday marka insha Allah qofkii keenay fikirkan keenay ilaahay qaraasiyo sababtoo dhalinyaro badan oo shaqo la'aan heeday shaqo u yeeshay hadda iska baxdid waa booskii waxay gashay maxaa la hayay caasiyaasha la dhihi jiray waagii hore caasiga nagu cusbaay waa la mahdi jiray haddana maanta waxaa la mahdinayaa mooto bajaaj oo ay ku fiican tahay xagga iyo barashada wadista ayada laakiin waxay ku xun tahay waxaa ku jirto wax la dhaho degdeg oo qofkii wato abadoo yar yahay hadduu weyn yahay mas'uuliyad iskama saaro dadka wado ama dadka uu saaran marka qaar waxaa arkaysaa asigoona qof wadin oo xawaaro ku socdo waxaa arkaysaa jid khaldan ayagoo galayaan horta intaasna dhib ay leeyihiin oo qaladaad ay galaan laakiin maasha Allah waa lagu nafciyey wax weyn ka tartay dalka waxaan rajaynayaa in wax badan laga faa'iidi doono marka waxaan rajaynayaa inaan cashirkayga maanta taas ku soo koobi doono arsaas kulibo bismillaah maanta cashirkeena wuxuu ku saabsanaa wadis ma ahaan dadna wax mala bareenin waxaan rabnaa inaan barano qaababka motorka iyo sharciyada iyo waxyaabaha uu leeyahay aan rabnaa inaan ka hadalno weenno suurto gashay inaan cashiro badan ka bixino waxaan rajaynayaa inaad wax ka fahmi doontaan ama wax aad ka baran doontaan markii ay cilad kugu timaado aan rajaynayaa inaad wax ka barato adiga iskaaga gacantaada ugu samaysato intaan in ka badanna waxaan rajaynayaa inaan baabuurtana ka soo diyaariyo mootooyin kalena ka soo diyaariyo hadday ahaa lahayd Facebook iyo hadday ahaa lahayd Facon iyo baabuurta yaroo raaxada intaba hadday ahaa lahaayeen cashirkeena maantana waxaan rajaynayaa inaan taas ku soo koobo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu saaxiibayaal waa mahadsantihiin meesha ay geysayeen walaalkiina ahay intaas in ka badan waan iga istaahilaa
كورنا إيقاظة أنت إيقاظنا أنا كما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته